Assalaamu calaykum. Soo dhawow daawade waa mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeenan maanta waxa aan kaga hadli doonaa mowduuc aad u cabsi badan. Waxaan kaa codsanayaa haddii aad fulay tahay sideeda oo kale, ha daawanin muuqaalka ee dhagaha igala soco keliya. Waxaa jira 3,500 oo nooc oo masas ah. Badankood masaskan wax halis ah ma lahan. Celceliska 600 oo ka mid ah masaskan waa kuwa aad u halis badan. Masaska ugu khatarta badan dunida waxaa ka mid ah midkan lagu magacaabo Taiwan. Waana kan aan mowduuca u soo xulanay maanta inaan kaga hadalno muuqaalkeena. Taiwan waa maska ugu khatarta badan dunida. Qaniinyadiisu waxa uu helisaa mariid aad u halis badan. Waxa ayna si fudud ku dili kartaa mariidka ku dhawaad 100 qofood. Waxaa sidoo kale halkiisa qaniyo mariidka uu soo saaro ama sunta uu soo saaro u dhiman karaa ku dhawaad 1,500 oo jiir ah. Waxay suntiisa ka kooban tahay maadada lagu magacaabo presynaptic toxins. Waxa ayna sababi kartaa haddii uu jirkaaga gaaro paralysis iyo daciifnimo jireed oo dhaqsi ah. Haddii uu ku qaniino maskan Taiwan, waxaad u baahan doontaa daawada lidukufidka ah antidote waliba saacad gudaheeda. Haddii aadan si dhaqsi leh ku helin daawadanna, waxa ay suntiisa si degdeg ku gaari doontaa wadnaha, waxa ayna sababi kartaa dhimasho dhaqsi ah. Daawade, waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. Haddii aad ku cusub tahay channelka, fadlan nagu soo biir oo subscribe saaro si ay kuu soo gaaraan muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Haddii aad horey u saartayna, waan kaaga mahadcelinaynaa dhiirigelintaada. Mahadsanid.